ninkani wuxuu go'aansaday inuu helo gabadhiisa ay ka qarisay xaaskiisii hore si uu u dabagalo. wuxuu qalabka wax lagu raadraaco ku dhex qariyey faashada ay lugta ku duubatay. isagoo hor fadhiya ayuu si kulul u weydiiyey halka ay ku qarisay canuga. haweenayda oo rabta inay ka baxsato gacantiisa ayaa u sheegtay been si ay u marin hababiso. waxay ku tiri, canuga waxaan kaga soo tegay guriga saaxiibaday. ninkii si degdeg ah ayuu goobtaas u tegey, laakiin wuxuu ogaaday inay been u sheegtay. cadho ayuu la qarxay markuu ogaaday inay ka baxsatay. isla markaasna haweenaydii waxay gashay hotel iyadoo u malaynaysa inay nabad qabto. waxay xiriir la samaysay gabadheedii si ay ugu ballanqaado inay dhowaan u imaanayso, laakiin ninka ayaa horay u ogaaday halka ay joogto isagoo isticmaalaya qalabkii raadraaca. in yar kadib waxaa albaabka hoteelka u soo garaacay shaqaalihii hoteelka oo u keenay hadiyad ayu malaysay inay caadi tahay. markay sanduuqii hadiyadda furtay waxay dhexdiisa ka heshay katiinadaha gacmaha. waa qalabka ay ninkan ka cabsato inta badan, waana fariin digniin ah. telefoonkii qolka ayaa soo dhacay. iyadoo og inuu isaga yahay ayay xariiqii ka siibtay, kadibna si degdeg ah ayay dibadda ugu carartay si ay tagsi u raacdo. iyadoo tagsigii saaran ayaa darawalkii waxaa soo wacay ninkii, wuxuuna u dhiibay taleefankii. markay maqashay codkiisa ayay naxdin darteed darawalkii ku qaylisay inuu gaariga joojiyo. halkaas ayay ka garatay in qalab wax lagu raadraaco lagu dhex qariyey. waxay iska tuurtay dhammaan alaabteedii waxayna u carartay guri duug ah oo ay ku dhalatay si ay ugu dhuumato. markay gudaha gashay waxay aragtay muuqaal derbiga lagu dhex daawanayo oo ku saabsan dhalashadii ninkeeda. muuqaalkaas wuxuu dib u xasuusiyey noloshii 6 sano ka hor. 6 sano ka hor waxay ahaayeen kuwa isjecel. markuu ogaaday inay uur leedahay, ninku aad ayuu u farxay, laakiin awowgiis ayaa u diiday gabadha sababo la xiriira qoyskeeda. wuxuuna ka dalbaday inuu furo isagoo ka cabsanaya in awowgiis uu dib u geysto gabadha. ayuu ninkii been u sheegay awowgiis isagoo ku andacooday inuu furi doono isla marka ay dhalato kadib. nasiib darro, awowgii ayaa duubay hadalkaas wuuna u daaray gabadhii. iyadoo ka xun ayay dalbatay furiin si ay u badbaadiso canuga caloosha ugu jira ka hor intaan laga qaadin. waxay u sheegtay been ah inaysan uur lahayn oo ay lacagtiisa uun u timid. 6 sano kadib, ninkii oo awoodda qoyska iyo hantida la wareegay ayaa bilaabay inuu meel walba ka raadiyo. ugu dambayntii wuxuu helay 6 sano kadib. maalin ayuu maqlay iyadoo taleefan kula hadlaysa canug u yeerayaar hooyo. markaas ayuu xaqiiqsaday in la khiyaamay oo uu canug leeyahay. muuqaalkii ayaa dib ugu soo laabtay wakhtigan xaadirka ah. ninkii ayaa gurigii ugu soo galay wuuna soo qabtay. waxay la yaabtay sida uu u helay iyadoo alaabteedii oo dhan iska tuurtay. ninkii ayaa jaray faashadii lugta. markaasay aragtay qalabkii yarayd ee lagu raadraacayay. isagoo katiinadeeyey ayuu ku cadaadiyey inay u sheegto halka ay gabadhu joogto, balse isla markaas waxaa albaabka ka soo gashay gabadhoodii yarayd.